السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونفسا اليوغ الشرفت لأن قد جيسنا إياه مدشة تجستي إيه الدونك لعلديسة انتبه هذا ما أنت مدشة تجستي وحنو قوة رئيسان دونا قدوميها قولها قرتدا قبل يعني شبلا مدنة برالي جامع دير أيامها الواحد سعتين ومجري كلاسي حاجة ويركا عركا أي سوق هذه سكين يكو سوق هذه سجدو haddaba arrimaha iyo arrimo kale ayaanu ka wareysan doonaa guddoomiyaha iyo xaalka hadda sida uu yahay ka hore waxaan ku soo dhaweynayaa buraale jaamac dayr guddoomiyaha golaha guurtida ee gobolka Jubbaland buraale ku soo dhawow madashaas tigis waa dhawaay waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idin maqlahayaa waa mahadsantihiin waa ku dhawaay waayahay su-aasha ugu horeysan ku weydiinayno guddoomiye waxa weeye xaaladda gobolka Gedo halkuu maraya ka waran xaaladdu nabad weeye xoogaa dhibaato ah jira waa dhibaatadii ceelcadde ka dhacday iyo dhibaato hadda haddii la kuro tuulo burwaaqa ka dhacday oo diyaaradaha Kenya ay dadka duqayn hayaan dhibaatadaas hadda ugu daran inta dhibaato oo jirta waayahay diyaaradaha duqaynta oo cirka ay Kenya soo qaadayso dad ma ku dhintay ceelcadde dad badan baa ku dhintay sida aan ka warqabno oo dadka noo jooga meesha oo degmada iyo gobolka ka tirsan ay noo soo sheegayaan dad badan oo reemiyi ah iyo xoolo badan baa ku dhintay sida aan anagu warka ku hayno ama waraysiga aan waraysanay sidoo noo sheegay kolley waxa tahay guddoomiyihii golaha guurtida sababaha ay weerarka cirka u soo qaadayaan Kenya maxay tahay cadowtinimo ay haddii la kuuraya ka faa'iidaysanayso dalkan burburku ku dhacay oo 25 iyo 26 sano burburo sanaa ay ka faa'iidaysanaysaa dawladeeduna waa jilicsan tahay oo dawladdu tabar ma yeelanin saasay uga faa'iidaysanaysaa oo haddii la kuurayahay u weeraraysaa dalka iyo dadka waayahay buraale jaamac deer waxa tahay guddoomiyaha golaha guurtida ee gobolka Jubbaland maamulka aad hoos tagtaan uu ka yahay madaxweyne Axmed Madoobe arrimahan ma kala hadashay weerarada ay soo qaadayso Kenya ay ku leynayso shacabka gobolka Gedo waa kala hadalnay oo wuxuu yiri haddii la ku leeyahay meeshaas dad faraha ku dhintay ceelcadde dad kale oo wax ku noqday iyo biyo ku dhamaatay midna ma jirto ku yiri saxaafadda iyo wararkaba saas oo ka sheegay Axmed Madoobe laakiin markii aad la hadashay adiga muxuu ku sheegay inta uu buu sheegay wax kale oo ka weydaarsan inuu sheegay waayahay mar haddii aad tahay guddoomiyaha golaha guurtida ee gobolka Jubbaland weerar cir ah ay ku soo qaadayaan Kenya madaxweynihii Axmed Madoobe uu leeyahay ilaa hadda dad lugma leh waxna kama qabanayo maxaa u talaa dadka gobolka Gedo degan anagu warkaas war aan la yaabnay weeye waa la yaabnay inuu haddii la ku leeyahay madaxweynihii Jubbaland inuu haddii la ku leeyahay warkaas yiraahdo oo haddii la ku leeyahay dhibaatadii gobolka iyo dalkiisa iyo dadkiisa ku dhacaysay inuusan haddii la ku leeyahay uusan wax xaqiiqo ah uusan ka sheegin anaga waa la yaabnay anaga oo haddii la ku leeyahay taageersan meel gaarka Jubbaland dadkii taageeray oo ugu horeeyay oo haddii la ku leeyahay soo dhaweeyay inaan ahayn warkaasna haddii la ku leeyahay gobolka nagiga degmada uu ka sheegay waa la yaabanahayba warkaas wuxuu ku yiri waa aqoon weyn iyo meel uu ka keenay waayahay ma malanaysaa Axmed Madoobe maamulkiisu weli imaanu soo dhaafin kismaayo aanu wadba ka hayn xaaladda Gedo ee ku jirto taa ma isleedahay guddoomiye annaga horta Axmed Madoobe nooma imaanin laakiin ku-xigeenkiisi baa loo yimid oo haddii la ku leeyahay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Ismaaciil baa loo yimid ma garat si fiican baan usoo dhaweynay Jubbaland si fiican baan usoo dhaweynay waa taageersanayn haddii la ku leeyahay dad taageerana annaga ugu horeynay marka haddii la aniguna guddoomiyaha guddiga guurtida saddexda gobol loo magacaabay baan ahaa marka warkaas haddii la ku leeyahay anagu meel ka keenay waa aqoon weyn ma garat waayahay xaaladda marka laga yimaado dadka uu inoo soo diraayo marka laga yimaado telefoonadu soo dirayo weli ma aragteen waxqabadkii ay iska lahayd Gedo ma ka aragteen Jubbaland sida hadda ciidanka oo ilaalinaya gobolka iyo dhaqaalihii ma ka aragteen mise waa weli waa shakhsi la soo diro iyo hadal iyo shakhsi la soo diro iyo hadal iyo dahab baan keenaynaa iyo mid baan iyo dhaqaalihii baan haddii la ku rafidinaynaa iyo warar sidaas waa helay laakiin waxqabad
jubbaland ay noo qabatay weli annaga nama soo gaarin ma garan. waayahay dhinaca kale iyagana waxaa jira weeraro aynu kusoo qaadayaan al-shabaab kenya dadka weli ma la hadasheen guurtidiinu iyo weliba adigoo ah guddoomiyaha madaxweynaha ma la hadasheen dowladda federaalka xaaladdu meeshay marisana ma u sheegtay? dowladda federaalka war aan ku qanacno nama siinin, jubbaland madaxweynaheedana war aan ku qanacno nama siin, wax dheefna weli nagama soo gaarin. dadkii haddii la ku leeyahay ka soo qaxay ceelcadde magaalada Garbaharre buu ku soo qaxay, haddeerna weli haddii la ku leeyahay wax diyaarad wax baabuur raacay iyo gudbi karay oo dhaqaalahooda ku gudbay iyo wax haddii la ku leeyahay annagu taakula aan u taakulayna aan siino oo wax yara ma ogiye wax haddii la ku leeyahay naga soo gaaray dowladda federaalka iyo jubbaland midna waxba nagama soo gaarin, annaga wax dhaqaalaho naga soo gaaray ma jiro. waayahay buraale jaamac dayr adigu kolley guddoomiye ayaad ka tahay, wax talaa hadda ay gaareen guurtida gedo oo ay rabaan inay kaga go'aan jubbaland iyo soomaaliya weli ma ka soo saarteen jirjir ayd ma qabateen oo ma ka hadasheen arrimaha dhibka dadka lagu hayo iyo waxyaalaha ka socda gedo maxaase u talaa gedo? waa ka hadlaynaa laakiin weli haddii la ku leeyahay jeeraaraan nagu jirto waxaan leenahay nimanku bal arag wax qabtaan baan leeyahay maamulkii jubbaland ay noo keeneen oo haddii la ku leeyahay doolow iyo buulaxaawe iyo luuq iyo haddii la ku leeyahay doolow iyo laga soo dhisay baa weli haddii la ku leeyahay waxay leeyihiin maamulkii waa soo socdaa, nabadgelyadii waa soo socotaa, waxbaan sugaynaa. haddeerna waa naga maqan yihiin oo luuq bay jiraan, wareeg bay ku soo maqan yihiin, ayagaasaan ka war sugaynaa. war-saxaafadeedka aan soo saarayn ayagaasaan la sugaynaa haddii alla idmo. waayahay ceelcad qaabkee wax uga dhaceen? madaxweynaha jubbaland wuxuu sheegayaa imaan cid lagu lay, madaxweynaha federaalkii wuxuu sheegayaa in askar badan oo kenyaatiya lagu dilay, idinku waxaad sheegaysaan in dad shacab oo badan lagu dilay. xaaladda runta dhabta ay ka jirtaa maxay tahay ceelcad? jubbaland haddii annagu aan haddii la ku leeyahay degmada gobolka Garbaharre haddii aan joognay waxaan ognahay ciidamadii haddii la ku leeyahay Kenya in meesha la yidhaahdo ceelcadde dad badan in looga laayay baan anagu maqalnay, dad badan in looga laayay baan maqalnay. haddii la ku leeyahay wax ilaahay abuuray oo haddii la ku leeyahay ninkii haddii la ku leeyahay Kenyana wuu inkiray oo wuxuu yidhi dad igama dhiman buu yidhi sida aan maqlay. annaguse waxaan ognahay dad badan inuu kaga dhintay baan ognahay meeshaas. waayahay hadda yaa gacanta ku haya gobolka Gedo? ma al-shabaab, ma idinka, ma jubbaland mise dowladda federaalka yay gacanta ugu jirtaa? Gedo meelaha muhiimka oo haddii la ku leeyahay magaalooyinka waaweyn ah jubbaland iyo ciidamadannada Soomaaliya iyo Ethiopia oo haddii la ku leeyahay u kaalmaynaysay gacantooda ku jirtaa, laakiin tuulooyinka dhexda ku jira shabaab baa gacanta ku hayo oo haddii la ku leeyahay waa kala gogo-an yihiin magaaladu oo haddii la ku leeyahay waddada lama mari karo, in diyaarad kore lagu mara ma ogiyo, waddada lama mari karo, shabaab baa meel walbaba yaa fadhiya. waayahay axmed madoobe sida aan kuu sheegay hore wuxuu u sheegay inay 4 qof kaga dhimatay, haddii wax ka badan lasoo helana uu isagu qaadi doono eedaas. maxaad adigu ku caddaynaysaa guddoomiye oo aad leedahay intaa ka badan ayaa jira uu madaxweynuhu sheegay? maxaad kaga jawaabaysaan arrintiisa? waxaan kaga jawaabahayaa dad iyo duunyo badan baa ku dhintay ceelcadde, dad iyo duunyo badan baa ku dhintay. duunyadii magaalada dhexdeeda ma ahee magaalada dad yar baa ku dhintay, laakiin baadiyaha dadkii xoolaha la jiray iyo xoolihiiba diyaaradaha Kenya waa xasuuqeen, aad baa loo xasuuqay, dad badan baa ku dhintay. waayahay sidaanu ogsoonahay bare hiiraale waa diidan yahay dowladda jubbaland, dhinacan kalena waa ku jira. idinku laftiinu sooma lama odhan karo Gedo weli waa diidan tahay jubbaland oo si fiican uma raacin, taas ayay weli dowladdu aanu u soo gaarin, soo laysma odhan karo guddoomiye? annagu jubbaland dadkii taageeray baan ahay oo ugu horreeyey, sidii baan u taageersannahay. wax haddii la ku leeyahay tanaasulaad oo aan ka samaynay iyo wax haddii la ku leeyahay haddii aan diidnay midna lama arko. dadka haddii la ku leeyahay haddee geed badan intii hal bislaysaa ku jirta dad saas oo haddii la ku leeyahay waraaqtashiil ahoo dan gaara la xiran oo meelo kale la haysta waa iska joogaan waddanka oo dadku waa wada sax lama dhihi kara, laakiin inta badan shacabka iyo maamulka iyo haddii la ku leeyahay ciidamada nooc kastaba ha ahaadeene
Jubbaland waa taageersannahay wax iskhilaaf oo nagu jira ma jiraan sidii aan u taageernay baa weli u taageersannahay waxtarna waa ka sugaynaayo waa kalaanahay waxtar baan ka sugaynaa haddii aan ka helayno waayahay sidaa nagu maqaalaa waxaa la leeyahay shir ayaa wuxuu ka dhacayaa Kismaayo shirka arrintaa wax ma ka ogtahay ka dhacaya Kismaayo haddii aad ka ogtahayna malinka cusub muxuu yahay shirka asaga annaga waxaan ka ognahay iyo waxna la socodsiiyo midna ma jira haddaan nahay gobolka Garbaharey degmada Garbaharey haddii aan nahay wax dad oo naga aadayna ma jiro dadna laga qaaday ma jiro dad nooga qaybgalayna ma jiraan waayahay marka laga yimaado hadalkii uu sheegay madaxweynaha Axmed Madoobe laftigiisu dadka deegaanka ka soo jeeda ee ugu jira xildhibaanada waxay sheegeen imaanay halka waxba ku dhiman dibna aanu ka dhicin dadka iyagoo ka soo jeeda gedo ee jooga Kismaayo ee xildhibaanada oo iyagu laftigoodu yidhi waxba kuma dhiman taa maxaad kaga jawaabaysaa in gudoomiye waxaas lamba gedo ka tegay oo haddii la ku leeyahay la yaqaano ama nabadoonnaha ama xildhibaano oo annagu aan digsanay oo gedo warkeeda hayo oo inta ka tegay gedo yimid oo ka tegay oo meeshaas ka qaybgalay ma jiraan dad xamar iyo urgooyinka iyo kasoo kacay inay tageen ma ogiya annaga hal nabadoona iyo hal haddii la ku leeyahay gobolkaan ka tegay midna ma jiraan annaga oo naga tegay shirkaas waayahay ciidan ahaan sida aan su-aashii hore ku weydiiyey ciidan ahaan yaa jooga gedo yaa u badan marka laga reebo al-shabaab oo degmooyin hay ciidamada jooga waa ciidamo Soomaali ah oo haddii la ku leeyahay Soomaaliya u dhashay oo military iyo police iyo haddii la ku leeyahay asluuba leh waxaa kale oo jira niman AMISOM oo Ethiopian oo AMISOM sheegta laakiin Ethiopia baa nala joogtay AMISOM kale oo haysa ma jiro ayagana ciidamadaas ay taakuleeyaan oo nabadgelyada ay wax ka sugaan waayahay dowladda federaalka madaxweynuhu wuxuu tegey Kenya wuxuuna ka qayb galay aaskii askartii ku dhintay halka mana iman ilaa hadda gedo iyo meeshii uu dagaalku ka dhacay arrintaa maxaad ka oranaysaa gudoomiye waa maqlay inuu tagay meesha oo taxsi u tagay oo haddii la ku laga martiqaaday waa maqlay laakiin annagu haddii la ku leeyahay mana ana dirsan namana weydiinin haddee madaxweyne nimu ku tagayna annaga hadda madaxweyneba ma ana aragba maba ana arag madaxweyne annagu waa maqalnaa laakiin federaalka iyo madaxweynaha iyo dadkaan ka maqalnaaye annaga haddii la ku leeyahay waxaan aragnayba maaha maba ana arkinba waayahay adigu waxaa tahay guddoomiyaha golaha guurtida ee gobolka gedo ma waxaad hoos tagtaa dowladda Jubbaland miya anigu Jubbaland baan ka tirsanahay Jubbaland baan ahay saddexda gobol oo Jubbooyinka ninkii loo magacaabay baan ahaa markii haddii la ku leeyahay Cabdullaahi Sharaaf Ismaaciil markuu halkaa yimid iyo waftigiisii markay imaadeen ninkii loo magacaabay baan ahaa saddexda gobol oo Jubbooyinka ninkii loo magacaabay baan ahay kuraale jaamacadeer baan ahay intaasna meeshaan joogay waayahay buraale jaamac dayriso lama oran karo shaqadaadii waad ka gaabisay imaad gobolka gedo oo ilaa hadda aan ciidan joogin wax dhaqaale aan oo haysan aad weli ka tahay guddoomiye imaad jagada iska casiso maahayn haddii aanay shaqadii aan la wadaynin haddii maxaan iscasil yaan isa casilaayo oo meeshii joogo oo yaa haddii la kule aan isa casilaa meeshii la xidlo weeye maamulkii haddii la kule ciidanka ahaa iyo maamulkii haddii la ku leeyahay degmooyinka laga keenay unbaaba meesha aan ku aragnay wax haddii la ku leeyahay meesha la yidhaha Kismaayo diyaaradii lagu tago moogo laguma tegi karo dhexdana waa ka kala go-an tahay haddii la ku leeyahay diyaarad wax igu qaado oo meesha igeeyana waa waaye taageero xumada iyo magaciisigu waxay ka socotaa Kismaayo weeye anigu marka haddii la ku leeyahay yaa isa casila anigu gobolkayga iyo degmadayda baan joogaa markii horena waxaan kamid ahaa haddii la ku leeyahay guurtida degmadaan kamid ahaa haddana weli guurtiisa degmadaan hayaan uga tagaa waxna uga tagaba ma hayo ayaan uga tegi waayahay weli waxaad dhexda kaga jirnaa waraysigii buraale jaamac dayr oo ah guddoomiyaha golaha guurtida ee gobolka Jubbaland waayahay buraale su-aasha aan ku weydiinaynaa waxa tahay inagoo weli goobaabsigii ku jirna xamar waxaad ku leedihiin xildhibaano dowladda federaalka maxay arrintan uga hadli waayeen iyaga laftigoodu ay madaxweynaha ugu khasbi waayeen inuu yimaado oo ka war doono shacabka reer gedo meesha la yidhaahdo xamar dad bacawataa jooga dad bacawataa dad lilaahi u shaqaynhaya ma jiro nin walbaba dantiisa u wardahayaa danta gobolka iyo dadka wadada ku leeyahay niman qurbaha ka yimid iyo waxaa tahay nabadoon la yaqaano oo
iyo xildhibaan la yaqaano oo haddii ku leeyahay kisma meesha la yidhaahdo xamar u tagay oo gobolkaa ka tagay maba jiraanba. waayahay sidee u aragtaa 4.5 in lagu soo xulo sidii hore lagu soo xulo sidee u aragtaa sidii hore in 4.5 lagu soo xulo sidee u aragtaa xildhibaanada maya ma ogolin annagu taas ma ogolin waa diidnay taas ma diidnay waa diidnay annagu gobol iyo degmo in lagu soo xulaan rabnaa haddii la ku leeyahay dastuurkii hore oo haddii la ku leeyahay dawladdii dhacday dastuurkeedii in la raaco saasaan annagu ogolnahay ma ogolin annagu waxaan foorfoor iyo waxaan leeyahay annagu waa diidnay ma ogolin waxa Soomaaliya dib u dhigayna ayada wey. waayahay markii aad aragteen dawladda Jubbaland qaabka ay gobolka Gedo ula dhaqmayso oo aad aragteen federaalku qaabka uu la dhaqmayo gobolka Gedo ma isu tagteen waxgaradkiinni aqoon-yahankiinni guurtidiinni iyo adigoo guddoomiyaha ma isu tagteenoo arrintan ma ka shirteen marnaba? waa ka shirnay oo annagu haddii la ku leeyahay waxaan qabanqaabinaynaa oo shacab iyo haddii la ku leeyahay ciidan iyo maamulba annagu waxaan rabnaa in haddii la ku leeyahay dawlad hagaagsan oo dawlad suuban iyo wax la isku raaci karo oo gogol dalka amniga in marka hore la sugo haddii la ku leeyahay degmooyinna arrinta lagu soo xulaa ayaan annagu qabnaa ma qabnaa annagu haddii la ku leeyahay boortifaas ma qabno. waayahay ma malanaysaan in gobolka Gedo uu ka bixi doono maamulka Jubbaland haddii ay saa iyo qaabka kusii socoto? hadday saas kusii socoto annagu la baxno waxba naguma dalkeediina waa haysanaa dadkeediina waa haysanaa haddii la ku leeyahay haddii la ku leeyahay laga baxana gaar baan anagu u tugi karnaa haddii la ku leeyahay Jubbaland hadday saa kusii socoto gaar baan uga bixi karnaa aad baan isugu kalsoonahay dad iyo diiyo iyo dalba waa haysanaa. waayahay adigu waa diidan tahay 4.5 Jubbaland madaxweynaheedu oo aad u tahay guddoomiye isna waa ogol yahay halkee wax ka qaldan yihiin guddoomiye? waa diidannahay anigu waa diidannahay aniga iyo wax alla wixii haddii la ku leeyahay gaba joogo dhan waa diidannahay arrintaas ma ogolin waa ka horjeednaa ma ogolin waa diidnay. waayahay gabagabadii maxaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya hadda iyo dadka ku dhegaysan doona aad kula dardaarmaysaa guddoomiye? waxaan kula dardaarmahayaa dalka Soomaaliya haddii la rabo in wanaag iyo haddii la ku leeyahay maamul suuban in laga wado oo laga helo haddii la rabo waxaan codsanayaa oo dadka Soomaaliyeed oo dhan u sheegahayaa inaan lagala tashanin haddii la ku leeyahay nimanka danaystaha ah oo hadda dadka madax baan u nahay leh inaan lagala tashanin ayagu ay gobol isugu imaadaan si isku arki karaan isku arkaan caqligooda ay haddii la ku leeyahay isugu imaadaan caqligooda ay ka heshiiyaan saasaa dawladda haddii la ku leeyahay qaran aan ugu gaari karaa inay iyagu midoobaan oo israacaan yaan ugu baaqahaya. waayahay kaasi wuxuu ahaa Buraale Jaamac Dayr guddoomiyaha golaha guurtida ee gobolka Jubbaland halka aad kala socotayna waa madasha dhegeysti. haddaba dadweynaha sharafta leh ee dhegeysanaya waxaanu la socodsiin doonaa in barnaamijkan noqon doono 7 taxane ah barnaamijkan oo isagu la magac baxay maxaa ka dhaba waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Yaasiin Ducaale waxaa xiriiryaha ahaa Asna Suudi waxaan idinkaga tegaynaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.